gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gabiley ahna kusimaha barasaabka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi maayarka caasimada gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Nuur Bakar iyo mas'uuliyiinta waxbarashada ee gobolka Gabiley ayaa maanta kormeer ku soo maray ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo 4aad ee dugsiga sare iyagoo ardayda Ilaahay uga bariyay inuu fududeeyo oo ay noqdaan kuwo ku guuleystay imtixaankaasi ardayda u fariisanaysa ayaan u dirayaa Ilaahay waxaan uga baryayaa in imtixaankaasi Ilaahay u fududeeyo anay noqdaan kuwa kaalmaha ugu horeeya ka gala wadanka dhammaan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka fasalada 4aad iyo 8aad waxaan halkan uga diranaa hambalyo iyo duco waxaan leenahay Ilaahay inuu ku guuleeyo imtixaankaasi gobolka Gabiley gaar ahaan hambalyo iyo duco baan u diranaa dhammaantood iyo degmada Gabileyba Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inay ku guuleystaan imtixaankaasi oo ku asturo si rasmi ah oo nabadgeliya ayuu u bilaabmay degmada Gabiley uga bilaabmay saaka macallimiintii iyo howlwadeenadii kaleba ay runtii u wadaan fasaladana waa la wada fadhiyaa hadda dhammaantood ardayda imtixaanaadka u fadhiisanaysay waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa inay ku dhammaystaan oo 12 sano ay soo baranayeen waxaa saaka inoo bilaabmay imtixaankiisana dugsiyeedka 2014-2015 dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ayaa noo si rasmi ah saaka noogu bilaabmay dhinaca kalena maamulka golaha deegaanka Gabiley maamulka gobolka Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley ayaa waxay kormeer ku soo mareen dhismaha jidka u dhaxeeya Dila iyo Kalabayd oo la dhigayo jid casri ah mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashayna waxa hadaladoodii kamid ahaa isku xidhaysay Kalabayd iyo Dila ee dhibta badnaan jirtay aan joogno oo la dhigayo maanta laami casri ah taasi oo ah himilooyinkii dawladdan u mahad celinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa sidoo kale hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda madaxtooyada oo runtii door weyn ku lahaa fulidda mashruucan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna uga rajaynaynaa inuu ka abaal mariyo runtii waxay ka mid tahay himilooyinkii hiigsigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan taaganahay wadadii isku xidhaysay Kalabayd iyo Dila oo maanta ay ka socoto hawshii lagu sameeyay wadadaasi oo la rabo in maanta Dila iyo Kalabayd oo dhibaato aad u fara badan ay dadka ka haysatay ballanqaadka oo dhawoobay aan waanad ku mahadsantahay adigii xukuumadda Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley